السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسول هذا ميلول بأدوني على ذلك جوكتان. ما أنت نكنا كشك سنيناي وانين أتوين وأمريكا أفراد المسلمين خليفك أفراد المسلمين وروح يجوه الرئي إسلام المسلمة صولي بعرورة دتك عرورته روح يجوه الرئي وإسلام أي أوهانين كني وجيسي دولانكي خيبر نبي وكوق هذا نمكي يهودا يدقنا دولات كمجال مدينة نكني وأنا المركب قابت دجال كلمة ذو عن عد كذا بحلن على وجيسة نن ولا واقع أوسجرين إلا هذه ولا واقعنا ayaa dhiiga oo u dara uma naxariisto dabadaawada ninkaanu ka waramayno waa nin asagoo adduunka jooga lagu bishaareeyay jannada ee lagu yiri waxa tahay ahlu janno ali wuxuu ka mid yahay 10 nin ee jannada lagu bishaareeyay oo mar kale waxa uu ka tirsan yahay 6 nin oo amiirka muslimiinta Umar ibn Khattab markii ninkii shaydaanka ahaa uu tooreedii ku dhiftay Umar u dhimanayay 6 nin ee uu ka ballamay Umar ee guriga uu ku soo xiray uu ku yiri 6dooda mid ka mid waa in iska soo doortaan 6 nin ayaa ku jira ninkani dabadaawada ninkaanu maanta ka sheekaynaynaa waa nin aad weyn waa aabaha dhalay حسن حسين سيدا شباب أهل الجنة نبي أيها صدقية وأنا نادرك نبي والنبي أي المادريين نكني بني آدم هدي وشرف لي هاي نكن ويقول أنت لما أنت هل كيدون طبعا كايماته بني آدم هدو وشرف لي هاي نكن ويقول أنت نكني ونفتي هوريه نبي هبينكي أو هجروني نفتي سكفرتي أو هبينكي صوبنو وهجروني نكني نفتي سأيا كفر هذا صاحبي سولو هذا ملو بعدوني على ذيك الجوكتان هلكني وتاريخ شو وألا بينكسو قد بينه معلومات لحديث التاريخ ده صحابة دي مسلمين تيدولان ay qaadeen hadii ay markii kugu horeysay oo halkan aad nagu aragto waxaan ka codsanayna si sharaf u leeyahay inaad channelka subscribe saarto like inaad noo saarto si uu meel dheer u gaaro soo dhawaada saaxiibayaal Ali Abi Talib amiirkii muslimiinta ama khaliifkii afraad ee muslimiinta markii uu nuurka islaamku soo ifbaxay waxa uu ahaa mid 10 jira waxaan u ahaa mid ku barbaara guriga nabiga oo Abu Talib oo ah Ali Abi Talib aabihii waxa uu ahaa mid faqiir toobay suubanaha ayaana markii uu arkay xaaladda Abu Talib ku sugan yahay maadaama uu adeerkii ka difaaci jiray Quraysh inteeda kale ayaa waxa uu yeeray Abbas waxaan uu ku yeeray ninkii Abu Talib waa kan ceertoobay niyahow caruurtiisa sooma wacna inaan qayb kamid ka qaadano oo aanu ka kala yareen culayska Abbas waa uu yeelay warkii suubanaha deedna Abu Talib ayaa u tageen nabiga oo aan nabi ahayn markaas iyo ninka la yiraahdo Abbas ibn Abdul Muttalib oo suubanaha adeerkii ah kadibna waxa ay ku yiraahdeen Abu Talib waxaan diyaar u nahay inaan caruurta ka qayb ka qaadno oo culayska aynu ka kala yareeno Abu Talib waxa uu ku yiri iga taga ninka la yiraahdo Aqil inta soo hartan si aad doontaan ka yeelo Abbas waxa uu qaatay Ja'far ibn Abi Talib suubanahana waxa uu soo qaatay ninka la oranayay Ali Abi Talib oo ah geesigeena maanta hadaba wadayaal Ali waxa uu ku barbaaray gurigii suubanaha oo suubanaha ayaa soo barbaariyay barbaarinta suubanaha uu barbaarinayna sidee noqon doontaa talo waa barbaarin midii ugu wacneed ayaa la barbaariyay hadaba wadayaal Ali markii uu jiray 10 sano waxa Ilaahay uu doonay inuu adduunka ku karaameeyo rasuul kaasoo ah barbaariyihiisii nabiyullaahi Muhammad markuu nabiga uu diinta lagu soo dejiyo oo nabinimada loo calay masaarana Ali wuxuu ahaa mid 10 jirsaday oo daa'ada 10ka marka galay ayaa uu ahaa maalmaha kamid ayaa waxa uu arkay rasuulka oo dukanaya deedna waa uu yimid wuxuu ku yiri maxaad sameynaysaa Maxamedow waxana uu ku yiri Ilaahay ayaan caabuday kadibna nabigu waxa uu sharxay diinta islaamka in asaga rasuul laga dhigay oo adduunka loo soo diray diinta ayaa ugu yeeray suubanuhu Ali laakiin waa uu ka diiday wuxuu yiri ma sameynayo ilaa aan Abu Talib u tago oo arrinkan aan u sheego suubanuhu waxa uu ku yiri hadii aadan taladan iga yeelinin oo aadan warkan iga qaadanaynin cid kale ha u sheegin hase yeeshee maalmaha kamida ayaa Abu Talib waxa uu arkay nabiga oo cibaadeysanaya waxana uu ku yiri war maxaad sameynaysaa niyo risaaladii ayaana uu sharxay suubanuhu sida ay tahay ayaana uu sheegay markaana waxa la jooga suubanaha Ali Abi Talib maadaama uu ahaa barbaariyihiisa kii soo koriyay oo gurigiisa ku noolaa Abu Talib markuu arrinka arkay ayaa uu yiri suubanuhu waa uu yeeray oo wuxuu ku yiri Ilaahay ayaa soo diray rasuul baana ahay adeerow dacwada laga qaado oo islaam Abu Talib waa uu diiday inuu qaato risaaladii iyo diintii uu nabigu ugu yeeray inuu qaato waa uu diiday laakiin waxa uu ballan qaaday inuu waligii ilaalin doono oo ka difaaci doono cadawgiisa علينا waxa uu ku yiri Muhammad waxa uu ku farayay yeel waxaan hubaa inuusan wax khayr mooyee wax kale uusan ku faraynin halka ayaa uu ku islaamay wiilkii yaraa ee la oranayay Ali Abi Talib asagoo 10 sano jira ayaa uu islaamay waana qofkii u horeeyay caruura ee halka ku qaata diinta Ilaahay Ali halka ayuu ku islaamay qofkii u horeeyay ee rag ee qaangaar islaam wuxuu ahaa Abu Bakar caruurta kii ugu horeeyay waxa uu ahaa Ali Abi Talib kuwa adoomahana waxa ugu horeeyay Zayd ibn Haritha oo nabiga mawlihiisa ahaa halka ayaa uu ku islaamay Ali inta wixii ka dambeeyana waxa uu ahaa mid nabiga laazima sida harkuba uu laazimo qofkiisa meel ma aada suubanuhu ilaa calina wuxuu ahaa mid la jiro markii nimankii Quraysh ay isku daaleen suubanaha nabigana loo fasaxay inuu u hijroodo magaalada Madiina ayaa nimankii Quraysh waxay ku kulmeen halkii ay ku kulmi jireen daartii la oran jiray Daaru Nadwa kadibna waxay iska raay weydiiyeen wixii ay ka yeeli lahaayeen Muhammad iyo asxaabtiisa wadamaynaa waxay talada rogrogaana waxay go'aan ku gaareen in nabiyullaahi Muhammad laga takhaluso oo adduunka la dhaafiyo ninka Abu Jahl ayaa waxa uu yiri waxaan arkaa oo tala aan ku soo jeedinayaa in 40 wiil oo qabaa'ilka
quraysh ka kala yimid oo dhalinyaro oo xoog badan aynu soo aruurino deedna mid walba seef af badan aan u dhiibno kadibna guriga maxamed habeen asoo hurday ay hareereeyaan subaxii markuu waagu bariyo uu soo baxana mar qura afartankoodu ay seefta ku kulmiyaan kadibna markii uu dhinto aynu ka istiraxno kadibna ma awoodi karaan reer bani hashim inay la dagaalamaan 40 qabiil oo quraysh kadibna waxay ku qancin doonaan diyada anaguna halkaas ayaan diya ku siin doonaa maxamedna sida ayaan uga takhalis doonaa nimankii kufaar quraysh waxay ku heshiiyeen heshiis noocaas habeenkii markii gurigii isku weer ka qabteenna oo Abu Jahl ciidan uu hogaaminayo 40kii ah ay gurigii isku weer ka qabteen suubanuhu uu ku jiray ayaa malaku jibriil baa soo degay suubanahana waxa lagu yiri guriga asaga waa inaad caawaba ka baxdaa oo aadan ku ooyanin kadibna cali ayaa markaa la joogay suubanuhu wuxuu amray in cali uu bedelkiisa jeefto guriga go'iisana uu hugto waxaana uu ku niyad dejiyo waxa uu ku yiri waxba kuma yeelayaan aniga bedelkayga jiifo suubanuhuna waa uu ka baxay gurigii ayagoon dareemin sida ayaana uu ku tagay oo ku hijrooday haddaba daawada cali markii subaxii waagi bariyay gurigii ayuu ka soo baxay nimankiina yaab iyo makaag ayay la anfariireen markii ay arkeen in uusan maxamedba joogin waxa meesha jiif oo caaw dhan ay waardiinayeen uu yahay cali haddaba daawada xaaladdu waa ay socotay muslimiintina waa ay hijroodeen oo magaalada madiina ayaa la tegey sanadii labaad ee hijriyada markii la gaaray waxa dhacay duulaankii weynaa ee Badr halkaasi oo isku farasaareen muslimiin 312 tiradoodu ay tahay iyo nimankii waaweynaa ee quraysh oo ciidan 1000 askari ku dhow hogaaminayo halka markii la isku farasaarey 3 nin oo isku qoys ahaa oo gaalada kamid ahaa ayaa waxay u soo baxeen mubaarazo intii aan dagaalku u bilaaban wana caadada dagaalada ayaa ahayd xilliga in labada ciidan intii aysan dagaalamin ka hor la sameeyo wax la yiraahdo mubaaraza taasoo ah dhoolo tus la sameeyo oo qolo walba awoodooda ay soo bandhigayso intii uusan bilaaban dagaalku gaaladii waxay soo dirsadeen 3 nin oo kala ah Cutba ibn Rabiica iyo Shayba ibn Rabiica iyo Walid ibn Cutba oo ah 3 nin oo wiil iyo aabihii iyo adeerkii ah oo hal qoys ah halka markii sida ay noqotay ayaa muslimiintana niman dhalinyaro saddex ayaa seefaha boobay oo nimankii ka hortagay laakiin nimankii quraysh way ku qanci waayeen in niman aanay garanaynin ay la dagaalamaan maadaama ay ahaayeen niman waaweyn oo la yaqaan ugaasida quraysha waxa ay ka xishoodeen ama ay maartay u arkeen ceeb in la dagaalamaan dad ayaga markaas sida ay u arkayaan aan u qalmin dadna waxay ku yiraahdeen qolamaatiin adinku wiilashii dhalinyarada waxay yiraahdeen reer Madiina ayaan nahay oo si khasraj nimanka ansaarta ayaa nabi maxamed soo dhaweeyay ayana laakiin nimankii quraysh waxay ku yiraahdeen war anagu waxdan idin kama lihin nimayahow iska laabto maxamedow waxay yiraahdeen noo soo saar dad anaga noo qalmo oo ashraafteena oo reetulka yaga raggan isnaqiinay noo soo saar marka ayaa rasuulku waxa uu saaray 3 nin oo asaga qoys ahaan qarabadiisa ah familkiisa hoose ah wuxuu diray Hamza oo adeerkii ahaa iyo Ubayda ibn Harith oo ilma adeer ay yihiin iyo Ali ibn Abi Talib saddexda ayaa uu suubanuhu diray oo mubaaraza u diray goobta dagaalka markii la tagay la isku mabadaahinba Ali waxa uu kala tuuray mar qura oo seefti uu ka dhex bixiyay gaalkii marka ku soo aaday halka ayaanu kaga guuleystay oo dhagta ayaa uu dhiig u daray muslimiintiina halka ay ku dagaalameen dagaalkii Badrna waad garanaysaan hore ayaan uga soo hadalnay channelka ay ku jira 70 gaaladii kamid ah waliba kuwii waaweynaa ay u badnaayeen ayaa maalinta halka lagu halaagay 70 kalena maxabiis ayaa loo qabsaday dagaalkii Uhud markii la gaaray Ali waxa uu kamid ahaa raggii wacdaraha muujiyay ee aad u dagaalamay maalinta intaan muslimiintu jabin koor waliba raggii qoladii la oranayay Cabdudaar ee calanka u siday yawm Uhud nimankii kufaar Quraysh raggii aadka u dhameeyay ayaa ku jiro aad ula dagaalamay asaga iyo Hamza oo wacdara ayuu ka dhigay duulaankii la oranayay Khandaq markii magaalada Madiina lagu soo qaaday oo 10,000 oo ciidana ay magaalada Madiina soo hareereeyeen maalmaha kamid ah godkii ay muslimiintu qoteen ay ugu talagaleen inay magaalada ka difaacaan waxa ka soo dulbooday dhowr dagaalyahan oo ay ku jiraan Khalid ibn Walid iyo Ikram ibn Abi Jahl iyo nin dagaalyahan oo musiibaha la oran jiray Amr ibn Abdul godkii markay ka soo boodeen oo muslimiinta dhankoodii ay soo mareen ninkii la oranayay Amr ibn Abdul faraskii ayaa uu ka soo degay waxana uu dalbaday mubaarazo muslimiintii ayaa soo dhex istaagay wuxuu yiri hal min mubaaris warwiil soo baxayahay ma jira oo ila dagaalamayo Amr ibn Abdul taariikhyahanadu waxay sheegaan ninkani inuu nin musiiba ahaa nin raga carab ay ku tiriso leeyahay hebel wallahi inuusan kunnin wallahi inuusan ka jeesanin kunnin buu dhigmaa ninkaasi kunnin kama cararo raga ay yiraahdaan ayuu ku jira ninkani xilliga asagaana waxa la sheegaa daadiisu inay 80 ay ahayd baa la sheegaa laakiin awoodiisu mid ay dhameystiran tahay oo dagaalyahan aan loo gelin ayuu ahaa Amr ibn Abdul saadaradeed ayaa markii uu godka ka soo booday oo dhanka kale uu soo istaagay ayaa uu yiri hal min mubaaris ninkii muslimiinta Maxamed raacayo ma jiraan nin soo baxayo ila dagaalamayo Amr waa dagaalyahan ay maarigta iyo goobaha dagaalku ay soo tajrubeeyeen oo nin loo dhiga ma jir nin qabaa'il carbeed kaligi weerara ayuu ahaa ninkani oo nin musiiba ayaa u ahaa teedna markii uu arkay suubanuhu ninkan soo baxay isla markiiba Ali ibn Abi Talib ayaa yiri rasuul Allah aniga ayaa u baxay kadibna rasuulku waxa ku yiri war Ali fadhiiso ninkani waa Amr ibn Abdud innahu Amr ibn Abdud iska fadhiisanayo suubanuhu waxa uu isleeyahay ninkan musiibada wiilkan yar hadda soo baxay yuusan maaratay ay dilin laakiin Ali arrinka ka bedelan
ayaa u muuqatay oo ah inuu asagu dili karo gaalkan isa soo waalay mar kale ayaa cali yiri rasuul allah aniga ayaa baxay ninka camr ibn abduud inta waa u jeesjeesanaya wuxuu leeyahay maxaa dhacay maxaad u soo bixi laadeen meeyay jannadii aad leedeen waan galeynaa soo adinkii lahaa hadiina la dilo janna ayaan galeynaa maxaad u baqaysaa anigu weey kama baqayo maxaad u baqaysaa muslimiinta ayuu kicinaya si ay u soo baxaan dadna cali ayaa mar kale rasuulbanaha weydiisay rasuul allah ifasax ninkan aniga ayaa u baxay marka ayuu rasuulku ku yiri u bax sida ayaa ku soo baxay cali waxaan halka isku qaabilay laba nin oo dagaalyahanna oo musiibo ah cali ibn abi talib iyo shaydaanka la oranayay camr ibn abduud muslimiinta dhamaan wadnaha ayaa farta lagu qabtay oo waxa la yiri ninkan waxa weeye musiibada ah wiilkan yar talow laba cad u dhigi doono ayaa cid waliba ay maleynayso laakiin goobta dagaalka waxa ka dhacay waxa inta ka duwan waxay dagaalamaan labadii dagaalyahanba boorkuna uu kaco saxaabadu waxay yiraahdeen balaayada meesha ka socota iyo dagaalka meesha ka socda awgeed waxba ayaa la arki waayay boor ayaa kacay maadaama meesha isku hayaan laba nin oo dagaalyahanna ah sidii uu boorku uu cirka ugu jiray ayaa mar qura waxaanu maqalnay ay dhaheen takbiirta oo ka dhax yeeraysa boorkan meesha ka baxaya di rafiirshaba ninkii caliha wuxuu laba cad u jaray ninkii camr ibn abduud ah muslimiintana aad ayay u farxeen markaana qalbi jab iyo argagax ayaa waxa uu ku dhacay nimankii Khalid ibn Walid iyo Ikram ibn Abi Jahl oo godka ka soo booday waana ay carareen oo raadkoodii ayaa ay ku laabteen waxana ay ka carareen meydka geesiga weynaa ee Quraysh camr ibn abduud dabada wada cali waxa uu ahaa nin marka la yiraahdo mubaarazo ama nin in la isugu soo baxo ninaan cidina ku dhicin ayaa uu ahaa oo cid u soo bixi kartay ma aysan jirin dhammaan mubaarazooyinkii uu galana waxa uu ahaa mid guuleysta oo cadowgiisa laba cad u kala jira duulaankii Khaybar uu nabigu ku qaaday markii la gaaray cali waxa uu ka qaatay door aad u weyn Khaybar si aan hore uga soo hadalnaba waxay ahayd meel qalcado aad badan ay ku yaalaan oo yahuudu ay degan tahay oo qalcado dhufeysyo aad u weyn leh maalmaha kamid ayaa suubanuhu Abubakar calanka u dhiibay waxaana ku yiri la dagaalan cadowga waa la dagaalamay Abubakar waan u dhaqaaji way maalintii xigtay ayaa mar kale Umar raayada loo dhiibay waxa lagu yiri cadowgan la dagaalan qalcadana Noofur Umar waa la dagaalamay waan u dhaqaaji way muslimiintu waa iska soo laabteen maalintii xigtay ayaa suubanuhu waxa uu yiri biri calanka waxaan siin doonaa nin Ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin asaguna Allah iyo rasuulkiisa jecel calanka ayaan siin doonaa ninkaas Ilaahay gacmiisa ayuu noogu furi doonaa meesha Khaybar muslimiintii oo idil habeenkii oo dhan waxa hadal hayntu ahayd talow ninkani kuma ahaan doona nin walba muslimiinta kamid yihiin waxa uu jeclaa inuu noqdo ninka asaga ah maadaama la yiri ninkani Allah iyo rasuulkiisana uu jecel yahay Allah iyo rasuulkiisuna asaga ay jecel yihiin waa tilmaan aad u weyn oo qof kasto muslimi uu jeclaysan lahaa inuu ku guuleysto arrinkaas haddaba daawade Umar ibn Khattab amiirka muslimiinta waxa uu yiri weligay maalin ka horeysa maan jeclaysan in xil la iidiyo laakiin maalinta wallahi waan tamaniyay waan u hanqal taagay waan isdheeray buu leeyahay si rasuulku uu arko oo arinta ayada ay ugu dhiibo maadaama tilmaan cajiiba lagu doortay ruuxa asaga ah soo wixii kolkii la gaaray ayaa suubanu mar qura waxa uu yiri meey cali abi talib cali waxa uu ahaa marka asaga ah mid xanuunsanaya oo indhaha ayaa wax uga dhacay daaf deedna waxay ku yiraahdeen rasuul allah ninka daaf ayaa ku dhacay oo waa uu xanuunsan yahay kadibna igu yeer ayuu yiri rasuulku waa loogu yeeray indhaha ayuu kaga tufay waa caafimaaday kadibna calanka ayaa loo dhiibay waxa lagu yiri la dagaalan nimanka yahuuda ah halka joogo hadaba wada suubanu waxa uu siiyay calanka muslimiinta cali ibn abi talib waxana uu ku yiri la dagaalan cadowga qalcadahana waa inaad noo furtaa cali waa u baxay waxana uu tagay banaankoodii diinta ayaana ugu yeeray sidii suubanuba uu amray oo ku yiri suubanu markii uu baxayay ugu yeer diinta wallahi ilaahay inuu kugu hanuuniyin hal nin ayaa waxay kaga fiican tahay oo kaaga qiimo badan tahay in lagu siiyo geela midkiisa cascas cali markii uu tagay banaankoodii diinta ayaa ugu yeeray laakiin nimankani waa ay diideen in ay ajiibaan arrinkaasi waxana soo baxay mid dagaalyahan ah oo musiibo ah oo yahuudi ah kaasoo la oran jiray marxab ninkani wuxuu ahaa nin musiibo ah oo dagaalyahana oo yahuud ay ku dhaartaan ruuxa ka dhaqaaqana ahaa waa uu soo baxay isagoo xaraga kibir u socdo oo iskibkibrinaya ayaa uu soo baxay ninkani nin muslim ahaa oo la oran jiray Aamir ibn Akwac ayaa uu hore u dilay intii muslimiintu tii ay waxa weeye go'doominayeen oo dagaalka ay kula jireen mubaaraza midan cali oo u soo baxay ka horeysay ayaana uu ku dilay oo Aamir ibn Akwac ayaa hore u qabaa ninkani marxab laakiin waxa uu ismoodaa wali inaan cidina u babac dhigi karin laakiin ninkani sida ka muuqato waa nin kadsoon waa soo baxay soo xarar kibir u socdo oo ku gabyaya qad calimat khaybar anni marhabu shaki silahi batal mujarrab ida al-hurub aqbalat talahab wuxuu khaybar oo dhan waxay ogtahay inaan marhab ahay oo nin balaayi ah oo aan nin ku dhacaaba oo sajirin inaan ahay khaybar oo dhan way ogtahay marka dagaalka la gaarana nin musiiba oo ololayo holcayo inaan ahayna yahuudi khaybar way ogtahay ربا إنه بتجيو وعلي ودرنسيو إنه كعب صن لكن علي موصن هين دتك النوع على أياس ندن كيسة يري أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظر وفيهم بالساعي كيل الصندرة هذه يهودي وأي خيبر وقت هنا بلايتها أنا حنانيك هو يدي اللي بيحكم مقعدرت مركن الشبع وحوي وحلقوا انقلي وحوي إن اللي بيح أحد ومقعد اللي بيح بقى كمذا
كليث غابات كريه المنظر وفيهم بالساعي كي لا سندر روحي أن قبطنا بلايا كالرعدة نكي قعنتي دوغارتنا بلايا كالرعدة لبدا دغاليان meesha ay isku farasaareen calina mabada ahine labacad ayaa u kala jaray ninkii yahuudiga ahaa marxab dabada wada Salama oo goobjoog ahayd halkay ka dhacday mubaarasadaas cali iyo ninka yahuudiga ay isku haleeleen waxay tiri waxaan arkay tiri seefta cali oo ilkaha ninka la yiraahdo marxab kaga dhacday oo madaxiisa laba u kala dhigtay ayaa arkay tiri maalinta ayada ameerika muslimiinta cali ibn abi talib waxa uu ahaa nin haliyay ah oo waxa weeye dagaal marka ay noqoto aan loo galin ayaa ahaa wuxuu ahaa cali mid ka qayb galay dhammaan dhacdooyinkii suubanaha dhammaan duulaanadii suubanaha oo qaaday oo dhan mid ka qayb galay ayuu ahaa marka laga reebo duulaankii Tabuk wuxuu ahaa cali ninkii qoray warqadii ay ku heshiiyeen kufaar Quraysh iyo suubanuhu heshiiska loo yaqaano sulhul Hudaybiya oo maalintii Hudaybiya markii rasuulku uu umra aaday deedna Quraysh ay u diiday ay ku yiraahdaan iska laabo sanadkan sanadka xigtana imaw warqada ayada ninkii qoray ayaa uu ahaa Cali ibn Abi Talib oo halka ku qoray هذا وده علي بن أبي طالب الله كرر عليه نقضي وحوها أمير كأفراد المسلمين أما خليفة كأفراد المسلمين مركي للدلي عثمان بن عفان الله كرر عليه نقضي ذي النورين مركي للدلي علي وحو نقضي أمير كأفراد المسلمين وحنا أهل كاس قبل لوضي دجال ذي في نضعها المسلمين تحدوده كذا عيسى دجال كله يقان الجمل وده دجال صحابي زبير يا علي يا عائشة لنا هي علي بن أبي طالب ولنا ودحيي دجال كان وحكوا جيريودي أو لقد لي زبير بن العوام أو أها ويلك إلى شيء صفية بنت عبد المطلب نبي إيددي حواري رسول الله نأها وحكى له لقد لي طلحة بن عبيد الله أنت كده وحا هذا سيد عيد دجال كسفين معاوية يا علي ودحيي دجال هذا السنة وحا هاي كوفدنا أو ودحيي مسلمين لمن كخوارج تها كان حب هاي عيدا كعلي أيها وضمين وحا يجوان صدين إن أي دلان مرقرة علي بن أبي طالب ينك اللي يرادو عمرو بن عاص iyo Muawiya marqura saddexdaba inay dilaan ayaa ay ku heshiiyeen waxaana u suurta gashay inay dilaan Ali ibn Abi Talib ninka la yiraahdo Muawiya ay dhaawacaan ninka la yiraahdo Amr ibn Caasna waa uu ka badbaaday nimanka khawaarijta waxay ku heshiiyeen in xilliga ay salaada dujinayaan muslimiinta salaada subax marqura saddexdaba laga takhaluso calina waxa uu joogaa meesha Kuufo Muawiya waxa uu joogaa halka Shaam Amr ibn Caasna halka Masar ayaa uu joogaa ninkii عمرو العاص مركا صباحدا صلاة ما صوب بحين وأوحن وصنا وحن وكيشي السحاب اللي رادو خارجة ابن حذافة نينكي خارجة هاي دوني إنه دلو عمرو العاص نوحة ودلي سحابي اللي وراني خارجة ابن حذافة وحنا عام بحد واقع هايسكي اللي وراني هاي خوارجته أردت عمرا وأراد الله خارج أنا عمرو أيان دونين أندلو وعمرو العاص أيان أسعدين أندلو لكن إلهي بقى واحد دوني كلها نينك اللي رادو خارجة ابن حذافة إلهي بقى هاد دوني لكن أنا عمرو أيان دوني مركو دلي إنه عمرو دلي أياه اسمودي لكن واحد دلي سحابي كريم علي بن أبي طالبنا أصدقوا الدجينية مسلمين تصلاة الصبح أيا نينكي شيدان كهاي لورنشري عبد الرحمن بن ملجم أيا دلي وهالكا أيا وكود دلي وسيف أيو مدحك كقدفتي هالكا أيان وكنا في بحي أميرك مسلمين تا وحوي أفراد خليفك مسلمين تا أفراد علي بن أبي طالب أبو الحسن والحسين رضي الله عنهما وده قصدا كوبان أيان كله وذاقي والله هليجا مسلم كا يا صحابيجا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هدي هل كان سوقرتي مقالك سبسكرايب صار أدبن كومات علنيا لسه مقالك حلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.